isku daaweynta daawooyinka dabiiciga ah ee herbalka waxa ay ka mid tahay waxyaabaha ugu waaweyn oo bulshadeena Soomaaliyeed ay la qabsadeen sanadihii ugu dambeeyay. Halkani waa xarunta ugu weyn Al-Huda Herbal oo ku taala bartamaha magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. Al-Huda Herbal waxa ay markii hore caan ku ahayd magaalooyinka waaweyn ee Soomaalida oo ay ka mid tahay Garowe, Hargeysa iyo sidoo kale dalka dibadiisa oo ay ka mid tahay magaalooyinka waaweyn ee Kenya, Yurub iyo sidoo kale dunida inteeda kale. laakiin xaruntan ayaa ah xarunta ugu weyn ee Al-Huda Herbal oo ku taala magaalada Muqdisho. halkan waxaa si joogto ah u soo fadhiista isla markaana u yimaada wadaadka caanka ah ee Dr. Farxaan Cali Dhimbil, kaas oo ka dabiibaya xanuunada iyo cudurrada halista ah ee sababi karta geeri. waxaana ka mid ah xanuunka halista badan ee kansarka, kaas oo muddooyinkii ugu dambeeyay faraba'an ku hayay bulshadeena, xanuunka dhiigkarka iyo sidoo kale macaanka ama sokorta. qaybtan waa qaybta gaarka ah ee loogu talagalay in bukaanadu ay ku sugaan shiiqa. waxaana halkan ay yimaadeen goor hore oo maanta oo khamiis ah si ay ula kulmaan Sheekh Farxaan Cali Dhimbil. waxaan la hadalnay qaar ka mid ah bukaanada sugaya shiiqa, kuwaas oo ka warbixinaya xanuunada ay dareemayaan iyo goobaha ay ka kala yimaadeen. halka waxaa mid islaanteeda xanuunsan ayaa soo waday. waxay tirinaas qayb waxaan aasnaa bukaankaas shiiqaas ayaan u tagayaa oo Al-Huda oo xanuun sanad iyo kabiyo ay xanuun sheeganaysa dhinaca sokorta. lugaha markino xanuun ay ka sheeganayso. waxaan ugu idaba mugaasaadooti u sheegi doonto shaqada aliida kulay xanuun badan baan dareemayaa markii hore xanuuno la igu sheegay way jiraan marka muddo hadda ka qaadanay daawo muddo ilaa 7 bilood meelahaas alxamdulillah wax badan oo ka dareemoona fiicana insha Allah waxaan rajeynayaa kulay waxaan alla qadarin ma dhaco in Ilaahay daawo noogu daro sana rabo ugu fiicnaaday in Ilaahay inta kale islaamka ana daawo ugu daro sheekana ugu ducaynaynaa. bismillah waxaan u imid walaa inaan sheekh la kulmo maya dhowr jeer intiga hore waxay xanuunaya dhinac waxaan rajeynayaa insha Allah inaan ku fiicnaan doono saan awalba ugu fiicnaaday alxamdulillah. guulaha ugu waaweyn ee Al-Huda Herbal ee gaadhay waxaa ka mid ah in bukaano Soomaaliyeed oo si ba'an la xanuunsanayay xanuuno halis ah oo uu ka mid yahay kansarka inay ka bogsadeen kadib markii ay adeegsadeen daawooyinka dabiiciga ah ee Al-Huda Herbal. bukaanada qaarkood ayaa hore waxa ula kulmeen dhaqaatiir kale oo u qoray daawooyinka kiimikada leh, waxaana qaarkood loo sheegay inay geeriyoon doonaan ama ay dhiman doonaan maadaama ay haleeleen xanuuno iyo sidoo kale cudurro halis ah. bukaanada Al-Huda Herbal ku bogsooday markay adeegsadeen daawooyinka Al-Huda waxaa ka mid ah hooyo Maka, waxay ka mid tahay hooyooyinka muddo la xanuunsanayay xanuunkan kansarka. waxaana isaga oo shiiqa jooga magaalada Nairobi ee wadanka Kenya waxay kula xiriirtay telefoonka markaas oo loo soo qoray daawooyin kaalmaati ah. mar labaad iyo mar saddexaadba hadda Ilaahay baa iska leh talaabo kastana Ilaahay baa ku shaqale goorta aad qaadaysid. aniga kulli xanuunka iskuma ogeyn, waa la iqalay naaska la iga qalay. markii la iga qalay muddo ka bacdi haddana meeshii bay wax iga soo laabteen. markii dambe oo shaki isbaaray waxa la igu yiri xanuunkaas ku haaya. ka bacdi markii la ii sheegay waxa la igu yiri hindeemayna marka wax lagaaga ma qaban karo. bas anoo iska jooga oo wali wax daawo aan isticmaalin waxa la ii soo sheegan arkay in Sheekh Farxaan oo la xayisiinayo dad badanna Ilaahay ugu soo dhibay ka bogsadeen xanuunkaas haye waa la xiriiray xarin u kuleeyahay bakaarahan tagay waa la Ilaahay jeediyay asagoo Nairobi jooga daweyn buu ii qoray kuma aanan qancin dawooyinkii markii uu ii qoray asagoo markaas waxaan ugu tagay Hargeysaan kula kulmay oo ibaaday wuxuu igu xanuunku jira laakiin saas ma weyna alxamdulillah kulli Ilaahay baa mahad iska leh. Ilaahay waana anigana i waafajiyay dawooyinkii baan qaaday muddo dhowr bilood ahaan qaadanayay. iminka bishii ugu dambeysay baan qaadanayaa oo qaybtii ugu dambeysay alxamdulillah
waxaan u mahad celinayaa Allah iyo abuuray koow marka hore marka labaad waxaan u mahad celinayaa Sheekh Farxaan Cali Dhambil dadka halkan maanta aan kula kulannay waxaa ka mid ah hooyo Maka oo ka mid ah hooyooyinka dhawaan ka badbaaday isla markaana ka bogsooday xanuunka kansarka kadib markii ay qaadatay daawooyinka herbalka ah ee Sheekh Farxaan Cabdirashiid Maxamuud Maxamed Cabdirashiid Rashka muqbahayaha ugu wanaagsan caasimadda Muqdisho Cable TV xarunta ugu weyn Al Huda Herbal magaalada caasimadda ah Muqdisho